halkani waa dunida media daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawataan dunida media haddii ay tahay markii kugu horeysay janaalka fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto sidoo kale gambaleelka aad furato si uu kuu soo gaaro muuqaal walbo aan halkan soo gelino waxaan barnaamijkeena maanta ku falanqeyn doonaa ama aan kaga hadli doonaa weerarada isdaba joogga ah iyo weliba qaraxyada dhibaatada geystay ee ka dhacay xalayto magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlayaa qaraxyada isdaba joogga maalmahan ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale weerarkii cuslaa ee xalay ka dhacay hotel Xayaat ee kilometer 4 sidaan wada ognahay waxaa maalmahanba Muqdisho soo xoogeysanayay dhibaatooyinka amni darro ay la kulmayaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho haddii ay noqon lahayd ciyaal weero oo ah dad loo asaasay inay qasaan siyaasadda iyo xasiloonida dalka iyagoo ku dhisan qaab qabiil sidoo kale dilalka tooreyda loo geysanayay shacabka ay u badan yihiin dumarka dhanka kale qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho haddaba sidaan wada ognahay waxaa hadda talada dalka haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo horey marar badan uga hadlay xilligii uu farmaajo hayay xilka qaraxyada ka dhici jiray Muqdisho wuxuuna ku eedeyn jiray dowladda farmaajo inay tahay mid markii la dhisay uu soo batay qaraxyada balse loolan siyaasadeed kadib waxaa la aaday doorasho waxaana xilka madaxnimo ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud waxaana xilka madaxweyne ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo magacaabay madaxweynaha haatan talada dalka haya Xasan Sheekh Maxamuud sida aad ogtihiin waxaa soo batay qaraxyo iyo dhibaatooyin kale oo fara badan saacadihii la soo dhaafay fiidnimadii xalay waxaa weerar xoogan uu ka dhacay hotel Xayaat kaasi oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed xalay ilaa iyo saaka waxaa hotelka dhexdiisa ka socday weerar u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad ka dhex dagaalamayay hotelka dhanka kale waxaa shalay lagu dhawaaqay in maanta uu jiro shir ay isugu imaanayaan dhammaan xildhibaanada golaha shacabka shirkaasi oo ajandihiisu ahaa in lagu dhaariyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kaasi oo loo dhaarin rabay xilka xildhibaannimo oo abadiyan ah ha yeeshee xalay waxaa dhacay xaalad amni darro oo guud ahaan gilgishay caasimadda taasi oo maanta loo baajiyay shirkii loogu ballansanaa ee Farmaajo lagu dhaarin rabay su'aasha in la weydiiyo mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah waxaad Farmaajo ku eedeyn jirtay dowladdiisa dhibaato iyo amni darro balse hadda ayay ka daran tahay oo qaraxyada Muqdisho u dhacayaan si isdaba joog ah saacadba saacadda ka dambeysa waxaana soo badanaya amniga oo laga deerinayo dhinac walba haddaba maxay tahay sababta hadda adiga ayaa ka ah madaxweyne dalka aabay xasiloonida iyo amnigii aad ku baaqi jirtay waa su'aal markaasi isweydiin mudan isla markaasina mudan in la weydiiyo madaxweynaha haatan waa tahay daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo afmareynaa barnaamijkeena falanqeynta arrimaha siyaasadda oo aad ka daawanayseen dunida media fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay janaalka subscribe saar sidoo kale furo gambaleelka si uu kuu soo gaaro muuqaal walbo aan halkan kusoo gudbino like garee muuqaalka una sii share garee saaxiibada